رمضان كريم داوديال ميل والبا joogtaan كل عام وانتم بخير aanu ku horeynay wadankaasi Finland magaaladiisa Helsinki waxa lagu qabtay xaflad ballaaran oo loogu talagalay 26 Juun iyo waliba 1 Luulyo oo ah maalmaha xorriyadda wadanka Soomaaliya warbixinta xafladaasina waxa Helsinki ka soo diray wariyeena Maxamed Bashiir xafladan oo iyadu ka koobnayd laba ujeedo isla markaana lagu maamusay xuska maalmaha 26 Juun iyo 1 Luulyo waxa sidoo kale xafladaasi weheliyay dhalinyaro iyagu maalmahan uga socday ciyaaro oo la gudoonsiiyay shahaadooyin iyo waliba koobkii ay markaasi ku guuleysteen gudoomiyaha ururka dalada September Sujaac Sheekh Muuse iyo sidoo kale dadweyne aad u fara badan oo ka qayb qaatay xafladaasi ayaa iyaguna waxa ay ka hadleen kulankaasi waxaana warbixintoodii ka mid ahaa sidatan galab wanaagsan dhamaan akhyaarta iyo dhalinyarada iyo gabdhaha iyo marti sharafta gobolada kala duwan ka kala timid aad iyo aad baan ugu faraxsanahay maanta oo ah maalin ku weyn ummadda Soomaaliyeed guud ahaan in aan sameysano barnaamij qiimo badan isla markaana kulansaday gabagabadii ciyaarihii soo socday muddadii dhowrka maalmood ahayd ururka September uu qabanayay iyo xafladda 26 Juun وين سلام يا دمان مرتي شرفته إنه كان تيمد باسا تركو وكيف تقول دمي سنسوق هذا اسفو يبانتا يلمان أخيار ترير هلسنكي وحان سيجارو سلام يا يعني يلا يركا كسوق يبغى كان لو يقانو ترتن كلكن كي سبورتيكا September ay qabato 5 sano 4 sano soo dhaafay ururka September ama ururka dalada September waa dalad marka muxuu daladu yahay ururka waxa la sameeyay 2005 2005 waxa asaasay Canada iyo ururo kale oo mataana la ah waxa lagu talagalay inuu coordinate gareeyo ama uu ka shaqeeyo networking-ka iyo shaqaynta ka dhaxayn karta ururada xubnaha ka iyo cid kale ku soo beeri karta markaas uu adeegi karo waxaan si gooni ugu mahad celin lahaa qabanqaabeyaasha tartanka September waxaan leeyahay runtii shaqo fiican ayaad qabateen laakiin waxaan rajaynaynaa inaad laba laabtaan kale waxaan leeyahay waalidiinta runtii waa mahadsantihiin dhalinyaradan ma jirleen hadduu soo waalid jirin waa u mahad celinayaa waalidiinta dhalinyaradan dhalay laakiin waxaan leenahay inay u dhabar adeegaan oo ay laba laabaan dadaalka ay kula jiraan dhalinyarada championskan waxaan leeyahay mar kale hambali حقيقي waxaa la xil saaray inaan ka hadlo munaasabada maanta oo kale 26 Juun 2014 maalintaas kadib waxaan qaadanay waa la isku darsamay midowgii wuxuu noqday waqooyiga iyo koonfurta Soomaaliya waxaan la baxnay Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Soomaaliya 1 Luulyo 1960 marka xaqiiqatan maanta waxay noo tahay maalin weyn oo farxad leh ummadda Soomaaliyeedna ay ka gigisheen gumeystihii na soo gumeystay mahadeedana waxa iska leh Ilaahay ka sokow dhalinyaro 13 ah oo SYL la dhihi jiray oo bilowday halgan lagu la dagaalamo gumeystahaas ayagana waxa kaga sii horeeyay halyeeyaal waaweyn sidii Sayid Maxamed Cabdulla Xasan Gurey أحمد قري حاوتاكو ولو سهل كمان كنبا يدمان أنتي رنتي يسقسوا هالشيء قبضة ترتن كان أنت بروح البدن أنا قررت لكم حتى أنا هي حويان أنا رنتي ما رحتي وقفر أحسن هاي مركي أبوه رئيسنا كوبي كمان وإذا كنت أنت ضرورتي يا دياها عيركو هو دهوغاياهاي ظروفنا ما هاي سعارة هاي كنا دهبيغا عيسك اللقيه يلي هيدا دباها شوطة وانا ستي كلي وايديها بليانيا xafladan oo iyadu ahayd xaflada aad loo soo agaasimay isla markaana ay soo agaasintay dalada isutaga ururada September iyadoo ay ka soo qayb galeen dadweyne aad u fara badan oo Soomaaliyeed isugu jira bulshada qaybaheeda kala duwan Maxamed Bashiir oo Maxamed telefishinka caalamiga ee Somali Channel Helsinki Finland